golaha stuudiyoga codka Jabuuti waxaa martay maanta mudane Xuseen Candole oo shakhsi reer Jabuuti oo mucaarad reer Jabuuti oo ku dhool magaalada Ottawa waddanka Canada. Xuseen waa codkii Jabuuti ku soo dhawow. waad mahadsantahay Maxamed walaal. waxaan intaan u galin waraysigeena waxaan jeclaan horta inaad hambaliyo mudane Xuseen aad naga siisid maadaama ay ciidiina soo food saartay ciid wadxa. waxaan leeyahay dadweynaha reer Jabuuti ee meel kasta jooga kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba ciid mubaarak. marxaba in Xuseen saan ognahayba Jabuuti waa dhowr sanadood oo laga soo wareegay calankii bal waxaad naga siisaa maanta warbixin guud xaaladda siyaasadeed waddanku ku nool yahay maanta. marka ugu horeysa horta 35 sanadood ayaynu gobonnimadii maanta ka joognaa maalinteenu qaadanay waxaana u muuqataa maanta wax ka sii dhacamaha waddankii wax u soo kordhaa ma jiro. dadweynihii reer Jabuuti maanta quraacdii iyo qadadii iyo cashadiiba ma hayaan. maanta dhalinyartii reer Jabuuti wax shaqo ma hayaan. maanta rajo ay sugayaan yararka tacliinta dhamaynaya Britoole ee jaamacadaha ka soo baxayaan ma jiraan. marka walaal waxa weeye waxba yaanan been la isku sheegin xaaladda Jabuuti maanta maalinba maalinta ka sii dambaysa ayay ka sii foolxun tahay. Xuseen maalinba maalinta ka sii halkan waxaan ka aragnaa dad badan oo waddankii ka soo qaxay ay siiba u badayeen dad badan oo u shaqaynayay taliskan mudane Ismaaciil Geele madax ka yahay kolka waxaa la moodaa in waddankii laga soo wala caydhay kolka aad u soo arkaysaa. wallahi horta maanta waxa mucjiso ah maalin kasta oo baska raacno markaanu shaqo tagaynaa amba markaanu magaalada Ottawa dhex joogno maalintii alla soo gooyba 10 qof baan la kulannaa. shani waa dad dhibaataysan oo laga yaabo inay soo dhibaatoodaan ay ka soo baxaan waddankii waanu fahmaynaa kuwa qaar laakiin waxaan u aragnaa dad shaqaysanayay amba maaliyad haystay amba meel sarsare haysto maanta haddana ka soo baxsanaya waddankii. waxaas waxay ku tusaysaa inay gabagabadii tahay taliskii Ismaaciil Cumar Geele iyo dhaqaalihii waddanku inuu aad iyo aad u sii liito. kuwa carab ku dhifatay u dhawow ee taliska la shaqaynaya halkan jooga waxaad u maantaa in hadii tolo kalsooninta ay kala wareegeen mudane Ismaaciil Cumar Geele. waxa weeye may waxay isleeyihiin intii yareed ay soo qaateen meesha ku qarsadoon bay isleeyihiin. waxaa doorasho nagu soo socota 2013 waa doorasho baarlamaan in mucaaradku wali mu sheegin inuu ka qayb galayo doorashada ma ogin inay xaq tahay inay sidii tii hore tahay aad soo arkaysaa. wallahi horta marka ugu horeysa waxa weeye in laga qayb galo anigu ma uma maleeyo waayo ninkan waa la garanaya meeshuu marinayana waa la garanaya siday ku dambeynaysan waa la garanaya. hadday tahay macaaridkan waxaan leeyahay horta si degdeg ah la iskugu yimaado hal la qaato qaraar loo dhan yahay hal la sameeyo nin lideera oo waddankii amba nin la tartami kara dadka. marka waxa weeye marka la tashado dabadeed ayuun baa wax qaraar la qaadan karaa laakiin maanta uma arka anigu meesha sida u socoto in ninkan laga badin karo amba laga qaadi karo hafti dadka weynaha. mudane Xuseen fursadda kala guurka amba isbedelka la rabo xagee kolka ka imanaysaa markastaba hadduu mucaaradku uu qaadaco doorasho kastoo dhacdo amba tii madaxweynaha tii baarlamaanka baatay wuxuu ka imanayaa ummadda oo sara kacda ummadda oo suuqa u soo dhaadhacda ummadda oo tiraahda sidii Tunisia iyo sidii Egypt in tiraahda kuma rabna iska socod inta buu isbedel dhaba ka imanaya laakiin nin sii diyaarsaday saxaaradihii nin sii diyaarsaday tiradii nin sii diyaarsaday inta qof ee baarlamaanka fadhiisanaysa sidee loola tartami karaa walaal. marxaba 2012 waad ogtahay Xuseen dadku waa isku eegaan inay iska caydhiyaan iyagoo isku duuban way soo daadegeen sidaad sheegaysay Tunisia way ka eegaan inay u dhacdo meena dhicin nasiib daro Jabuuti maxaa kolka isbedelay. waxa weeye horta kulliba waddanku uu ka yaryahay waddanada kale dhibaatada jirtaana waxa weeye taliska meesha jooga xoog buu dadka ku haysta nin kastaba cabsi baa haysa laakiin waxaan leenahay cabsida hala dhaafo. waxa weeye waa in loo halgamo dad baa u dhintay calanka dadna wayna dimuqraadinimada u dhintaan wayn loo soo rakaco si degdeg la iskaga kaxayn karo taliska meesha jooga. xagga mucaaradka haddaanu soo mudane Xuseen maanta miyayna ahayn inay dawladku meel gaadha si degdeg loo dhiso sidee u diyaar garoon Britoole bal ka dhaxada wax kasta dhacaan waddankan buu Ismaaciil Cumar Geele laga caydhayo meeshaas miyaan ku dhacayn meel faaruq Xuseen. wallahi horta taladaasi waa talo wanaagsan annagu haddaan nahay jaaliyadda Ottawa ku nool amba diasporaga amba siyaasiyiinta mar badan baanu soo jeedinay talada in degdeg loo sameeyo dawladku meel gaadha laakiin walaalaha ayaanu ka sugaynaa talada macaaridka intii kale. marka waxa weeye macaaridkuna wuxuu kula leeyahay madax wuxuu kula leeyahay ummad dad daba joogsata. marka waxa weeye horta waa la isku iman doonaa wixii talada ka soo baxda macaaridkoo dhan baa lagu dhaqaaqi doonaa laakiin annagu waanu aaminsanahay in dawladku meel gaadha degdeg loo sameeyo si waddanka loo badbaadiyo. aragti guud baa jirta mudane Xuseen oo dadku ay yiraahdeen
dagaal hadduu waddanku san ku socdo uu talisku sii joodo way dhici kartaaba in dagaal sokeeya meeshaas ka dhaco waayo cibaadis baa jira kolkaa bal aad u sawarkaysa xitaa waa inay soo saarto dadku waxaa la moodaaba inay ka shigay inay ka cabsi qabaanba in dagaal qabyaali meeshaa yimaado xuseen ad saataa u arkaysaa wallahi horta marka ugu horreysa waxa weeye dagaal sokeeye inuu dhaco insha allah aan kuma rajaynayno marka labaad waxa weeye dagaal sokeeye ninka sameynaya waa la garanayaa ninka doonaya in qabiil la isku laayana waa la garanayaa waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ummadda reer Djibouti waa mid baanu leenahay ummadda reer Djibouti qabiil ma kala leh ummadda reer Djibouti weligeedba waxay isku duubnayd si calankooga u dhaliyaan marka maanta ragga noogu fiiqaya farta qabiilow waxaan u maleeyaa waa ragna doonaya inay waxaanu doonayna iyo meeshaanu ku soconnaa naga jahwareerinaya oo doonaya inaanu meel kale weyn marka waxa weeye xaq la yiraahdo qabiil ma jiro waxa la dhahaa wadannimo reer Djibouti yaa jirta ninka qabiil isku daba qarinayo isagu baa muuqan doona dadka reer Djibouti waa mid baan leenahay qabiil ma jiro waxa weeye Ismaaciil Cumar Geelle waxa doonaya inuu ku badda dadka u duqeeyo suu meesha uu sii joogo marxaba xuseen gabagabadii wareysigeena weeyaan kolkaa bal waxaan jeclaa maanta inaad wax fariin gaar ah u sheegaysid shacabka reer Djibouti qurba jooga reer Djibouti dibadaha jooga iyo mucaaradkaba dhinacooga aad wax ku dhalinaysid kolka waa kharataankii maxaad eeri ku xidhi lahayd horta marka ugu horreysa waxaan doonayay baaq yar oo ka soo baxay maalin dhaweyd nin macaarida oo reer Djibouti waxaan oran lahaa arrimahaas oo kale ah laga fiirsado inta wax la qorin waxa weeye inaku manihin haddaan nahay siyaasiyiintii mucaaradka raggii tilmaami lahaa dagaal qabiileed arrintaas in la iskaga dheeraadaan jeclaan lahaa talabaad waxa weeye jaaliyada reer Djibouti dibadda ku nool waxaan leenahay waddanka uu idii baahan yahay sarakaca u halgama kuwa Djibouti joogana waxaan leenahay walaalayaal haddaanu dibadda joognana hadiyo goor waanu idiga fikirnaa waanu idii halgamaynaa idinkuna dhankiina ka halgama oo sidii Tunisia iyo sidii Egypt iskaga kaxaya taliska macangaga Ismaaciil Cumar Geelle waad mahadsantahay wareysigii xuseen candhoole Ottawa